يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. walaalayaal halkan waxaynu ka bilaabi doonaa darsigeennii saddexaad ee ku saabsanaa barashada cilmiga dhaxalka. darsigeennii hore waxaynu kusoo qaadanay dadka wax dhaxla iyo siday wax u kala qaataan, laakiinse maanta darsigan waxaynu ka bilaabi doonaa qaybaha dhaxalka. duruusteennii labadeennii darsigii hore waxay isaga badnaayeen iska hordhac. maanta darsigeennii waxay ka bilaabi doonaa qaybaha dhaxalka. dhaxalku wuxuu u qaybsamaa walaalayaal laba qaybood oo kala ah. dadkan wax dhaxlaya qaybna waxay wax ku qaataan wax la yiraahdo fard, qaybna waxay wax ku qaataan wax la yiraahdo tacsiib. fardigu waa maxay hadaba? fardigu walaalayaal waxa weeye waa wax jaan go-an oo qofkan inuu wax jaan go-an oo sharcigu qadaray uu qaato. qofkan nus buu qaataa ama rubuc buu qaataa ama xoolaha 3 meelood oo meel buu qaataa ama xoolaha 6 meelood oo meel buu qaataa. wax jaan go-an buu qofkan qaataa. tacsiibkuna walaalayaal waa maxay? tacsiibkuna walaalayaal waxa weeye qofkan wuxuu qaataa waxaan jaan go-nayn. markaynu leenahay qofkan wuxuu qaataa waxaan jaan go-nayn waxaynu ka wadnaa qofkani wuxuu qaadan haddii keligii yahay xoolahoo dhan buu wada qaadan. haddii uu aanu keligiis ahayn dadka kale ahlu fardiga wixii kasoo hadha buu qaadan. marka walaalayaal hadaynu intaan kaga gudubno waa maxay fard? dadka ahlu fardiga waa ayo hadaba. qaybta koobaad ee dadka ahlu fardiga ama dadka waxa jaanta go-aan qaadanaya haddaynu ka hadalno, dadyaalaha waxyaalaha jaanta go-aan qaadanaya waa horta fardigu waa 6 shay. waxyaalaha jaanta go-aan ee sharcigu qadaray waa 6 shay. إما إنه النص النقطة أو تديو قار بان نص قاطع حوله ميت كتجي نص كيس قار دحلان، تديو قار ربع بيد دحلان، تديو قار نوح له ثمن بيد دحلان والربع ثمن وينو قرنا ربع وامحي وعفر ميلو ضو ميل ثمن وامحي ثمن وسديد ميلو ضو ميل حوله مركز سديد ميلو ضو ميل لاقي بيه ميل هم بوقف كنا دحليا. وحاكلوا ترى فرد أفراد وقال لي هذا الثلثان. ثلثان وامحي وحوله 3 meelood oo 2 meelood حوله 3 meelood marka loo qaybiyo 2 meelood ay bimacna 66.6 boqolkiiba buu qofkani qaadanaya. thuluth waa maxay? qofka fardiga shanaadi waxa weeye waa faradka la yiraahdo thuluth ama 3 meelood oo meel 3 dalool oo dalool. fardiga lixaadna waa 6 meelood oo meel. hadaba dadkan furuudan dadku say u kala qaataan bin hadaba hala ka bilaabi doonaa. dadku say u kala qaataan hadaba furuudan. dadka fardigan wax ku dhaxlay horta dadka furuuda wax ku dhaxlay horta waa 12 qof. 12 qof oo dadka dhaxalkii wax qaadanayay dadkii meedka dhaxlaya 12 qof oo kamid ah waxay qaataan waxyaalo jaan go-an. dadyogaas waxa ka kow ah qofka la yiraahdo zawjka. zawj qofka labaad waa maxay? waa zawjada. qofka saddexaad waa maxay? waa gabadha uu meed ku dhalay. qofka afraad waa gabadha meedku waa wiilkiisu dhalay ama waxa uu yahay hadduu nin yahay qofka dhintay ama ay ayada u tahay hadday tahay qofka dhimatay gabadh. qofka shanaad waa aabaha. qofka lixaadna waa hooyada. qofka toddobaadna waa awwaha. qofka sideedna waa ayada. qofka sagaalaad waa meedka walaashiisa waliba walaasha ay isku bahyihiin. qofka tobnaadna waa walaasha ay isku aabaha yihiin. qofka 11aadna waa walaasha ay isku hooyada yihiin. qofka 12aadna waa walaasha ay meedka isku hooyada kaliya ay yihiin. ama walaalka ay meedka isku hooyada kaliya yihiin. hadaba haddaynu halan ka bilowno kuwaas intaas waa markaynu duuduub ahaan u sheegno. haddaba haddaynu dadkan kala qaadno oo si faahfaahsan aynu u sheegno dhaxalka zawjka, ninku haddii naagtiisu dhimato seebo u dhaxlaya. haddaba ninku hadduu naagtiisu dhimato laba xaalad mid ka bixi maayo. laba xaaladood mid uu noqonaya in naagtii dhimatay ay ka tagtay xaaskii dhimatay ay ka tagtay caruurtaas isaga ha u dhasho ama nin kale ha u soo dhasho. caruurtaasi dariiqo sharci ah ku yimaadaan oo meher xaalaha ku dhashaan ama gabadhan dhimatay caruurtan ha ku dhasho dariiqo aan sharci ahayn oo ilmahan ay dhashay ilmahan ay wadatay ha ahaado ilmahan si aan sharci ay ku dhalin. haddii marleyba ay joogaan meeshii caruur meydku gabadhii dhimatay ay ka tagtay ninkeedu waxa uu qaadanaya wax la yiraahdo rubuc xoolihii 4 meelood oo meel. haddii laakiinse caruur aysan ka tagin gabadhani oo wax allaale ilma ay dhashay ama isaga ha u dhasho ama cid kale ha u soo dhasho ilmaha sharci ha ku dhasho ama si sharci darra ha ku dhashabe, haddaanay meesha jooginna ninku wuxuu qaadanayaa xoolaha gabadha uu qabay ee ka dhimatay ay ka tagtay nus xoolihii kala badh oo badhka soo hadhan dad kale iska qaadanaya oo iskale. marka zawjku haddii ninku naagtiisa ay dhimato laba xaala mid un weeye. gabadhii dhimatay inay caruur ka tagtay iyo inaanay caruur ka tagin. haddaanay caruur ka tagin ninkaasi xoolihii gabadh dhimatay nus buu ku leeyahay. hadday caruur ka tagtayna xoolihii gabadh dhimatay wuxuu ku leeyahay rubuc. intaasi waa dhaxalkii ninka. dhaxalka naagta haddaynu usoo gallo oo zawjadii ah haddaynu usoo gallo, zawjadu amase ooridu waxay dhaxlaysaa ninkeeda.
iyana sidii ninka oo kale laba xaalay leedahay. haddii ninkeedii ka tago ilmo oo dhalay ilmaha iyadu ha u dhasho ama se naag kale ha usoo dhasheen waxay leedahay iyadu thumun 8 meelood oo meel. haddii ninkaasi aanu ka tegin ilmo uu dhalay oo ay naagtan u dhashay ama se naag kale usoo dhashay haddaanu ka tegin ninkaasina waxay leedahay gabadhaasi rubuc 4 meelood oo meel ninka xoolihiisii. intii soo hadhan dad kala qaadan doona saynu arki doono. haddaba waxaynu kusoo khulaasadu waxa weeye zawjadu waxay leedahay laba xaalo. xaaladda koobaad waa in ninkani aanu carruur ka tegin waxay qaadanaysaa markaa rubuc. haddii ninkani carruur ka tegayna waxay qaadanaysaa thumun oo ah 8 meelood oo meel xoolihii. haddaba zawjada keliya ma aha. haddii ninku ka dhinto 2 xaas ama 3 xaas ama 4 xaas mid walbaaba goonideeda rubuc iyo thumun u qaadan maysa ee rubucaas iyo thumunkaasay wadaagayaan. مثلا ninbaa wuxuu ka dhintay afar haweena 4 xaas buu ka dhintay carruurna kama tegin. ninka 4 haweena ka dhintay 4 haweeni waxay wadaagayaan oo wada qaadanayaan xoolihii 4 meelood oo meel marka loo qaybiyo meel ahaan bay 4 haweeni wada wadaagayaan. hadduu carruur ka tagayna xoolihii 8 meelood oo meel bay 4 haweeni wada wadaagi doonaan. inta hadaynu kaga gudubno dhaxalkii zawjooyinka iyo oorida iyo afada ama xaaska hadaynu inta kaga gudubno dhaxalka gabdhaha. halka waxaynu ka bilaabi doonaa dhaxalka gabdhaha meydku u dhalay. gabdhaha haddii meydku gabdha ka tago oo gabdha uu dhalay uu ka tago 3 mid un bay noqonayaan. gabdhaha meydku dhalay inay tahay hal gabadh keliya, inay yihiin laba gabdhood iyo wax ka badan, in ay yihiin 2 gabdhood ama gabadh keliya iyo gabdha iyo wiilal isku jira. gabdhahaasi ha noqdaan mid keliya ama ha noqdaan gabdha fara badan. haddaynu ka bilowno xaaladda koobaad waa gabadh keliya. qof baa dhintay wuxuu ka tegay hal gabadha uu dhalay oo keliya. gabadha keliyahi ee aabaheed dhintay ama se hooyadeed dhimatay dhaxalkii aabaheed ama se dhaxalka hooyadeed waxay ku yeelan doontaan nus. xoolihii kala badh oo badh bay qaadan doontaa. badh kalena dad kala qaadan doona saynu arki doono. haddii meydku ka tago gabdho fara badan maxaynu ka wadnaa? gabdho fara badan waxaynu ka wadnaa 2 gabdhood iyo wixii ka badan. haddii meydku ka tago 2 gabdhood iyo wixii ka badan waxay dhaxlayaan iyana wax la yidhahdo thuluthaan 3 meelood oo 2 meelood. haddaba 3 meelood oo 2 meelood bay gabdhahaasi shuraakeynayaan oo qaadanayaan. meesha soo hadhayna waxaa qaadan doona dad kale sidaynu arki doono. haddaba haddii meydku uu ka tago xaaladda saddexaad haddii meydku uu ka tago gabdho iyo wiilal isku jira xukunku soo noqon doona. haddaba haddii meydku ka tago gabdho iyo wiilal isku jira mathalan wuxuu ka tegay gabadh iyo wiil, wuxuu ka tegay 2 gabdhood iyo wiil, wuxuu ka tegay 2 gabdhood iyo 3 wiil. siday doontaba ha ahaato xoolihii horta iyagaa wada qaadanaya. haddaan cid kale helo fardiya meeshii aanay joogin dadki iyagaa wada qaadanaya. waxayna u qaadanayaan xoolihii madax ka kow oo ah wiilkuna 2 madax buu leeyahay gabadhuna 1 madax bay leedahay. mathalan wiil ninbaa wuxuu ka dhintay wiil iyo gabadh u dhalay. xoolihii 3 meelood baa loo qaybinaya. wiilkana 2 meelood baa la siinaya gabadhana meel baa la siinaya. waayo ilaahay wuxuu ku leeyahay yuusikum allahu fi awlaadikum lidhakari mithla haddi al-unthayayn. ilaahay carruurtiinu idin dardaarmaya. ninkan labka inuu wuxuu leeyahay 2 dumara dheeftood. markaa 2 dumari waxay u dhigmaan dhaxalka 1 nin ah. marka walaalayaal intaa waxaynu kusoo koobaynaa darsigeennii saddexaad ee cilmiga dhaxalka. berri halkan waxaynu ka bilaabi doonaa insha allahu tacaala haddii alla idmo dadka kale ee wax dhaxla 12 qof 3 qof oo kamid aynu maanta qaadanay. waxaa inoo harsan 9 qof oo kale 9 qof ee kale insha allah waxaynu ku faahfaahin doonaa darsiga ka dambeeya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa tacaala wabarakaatuh wabillahi tawfiiq.